munaasibadan iyo lagu xuseeyay maalinta caalamiga ee biyaha laguna qabtay magaalada Hargeysa xarunta hay'adda shaqaalaha dawladda ayaa waxa ka qayb galay xubno kamid ah golaha wasiirada ee xukuumadda hay'adaha dawladda ka caawiya dhinaca horumarinta biyaha iyo martisalaf kale oo tiro badan wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha Salmaan Cali Koore wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Hinde Xirsi Gaani iyo wasiirka wasaaradda horumarinta deegaanka Marwa Shukri Xaaji Ismaaciil Baandare oo xafladaasi ka hadlay ayaa ka waramay siyaasadda dawladda ee ku wajahan horumarinta biyaha iyo kor u qaadista adeegyada aasaasiga ah ee nolosha bulshada saameeya biyuhu haddii aanay jirin beerna la heli maayo xoolana la heli maayo nolol la heli maayo waa bayska ilaahay ugu talagalay in adduunkan ku noolaado wax kasta oo la dhaqaajinayo biyo u baahan gaaligaasi haddii biyuhu ka maqan yihiin dhaqaaqi maayo aan noolay sidaa daraaddeed qarankan iyo xukuumadda cusub ee hogaaminaya madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland Muuse Biixi Cabdi waxaa ka go'an inay priority-ga koowaad u noqdaan biyo sababtoo ah caasimadda Hargeysa ee maanta aynu joogno boqolkiiba 70 in ka badan ayaan helin biyo nadiifa oo utility-ga wax la yiraahdo ama biyaha tuubada guriga ku jira sidaa darteed waxaan marka hore ilaahay inoo weydiinayaa raxmad khayr qabta meel kasta oo aynu ku sugannahay in ilaahay ina siiyo naxariista inoo kordhiyo innagana ka bulsho ahaan waxaa laynaga doonayaa inaynu ilaahay toobad celino marka hore rabbina aynu baryadiisa badino marka intaa laga yimaado waxaa lagama maarmaana runtii ama lama huraana in biyaha loo tabsamaysto sidii lagu kasban lahaa ama lagu xejin lahaa sidoo kale waxa iyaguna xafladaasi ka hadlay xubno ku hadlayay afka hay'adaha caalamiga ah ee dawladda ka caawiya dhinaca biyaha kuwaasi oo faahfaahin ka bixiyay mashaariicda kala duwan ee dhinaca biyaha ee ay ka furiyeen Somaliland intii ay jirtay country like Somaliland water becomes even much more critical. Water means everything to the people in this country. iyo arrinta labaad oo ah in mas'aladan deegaanka xal loo helo wadnaqlaysan abwaanintii wadnaqlaysan aqoon-yahaniintii wadnaqlaysan agaasimayaashii iyo madaxdii ugu horeeyay inay tilmaameen in deegaankii aafadiisi ay ka badatay intii caadiga ahayd loo qaadan karayay Salmaan Cabdi Cali warbaahinta STN Hargeysa.